diyaaradan oo kasoo degtay garoonka diyaaradaha Generaal Maxamed Abshir ee magaalada Garowe ayaa siday qalab caafimaad oo loogu talagalay in looga hortago xanuunka coronavirus. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa qalabkan waxaa soo gaarsiiyay maalqabeen u dhashay dalka Shiinaha kaas oo leh shirkadda Alibaba. Dowladuna waxay sheegtay inay u qaybinayso dowladaha xubnaha ka ah dowladda Federaalka Soomaaliya. qalabkan ayaa wasaaradda caafimaadka Puntland ka caawin doona la tacaalida bukaanada laga helo xanuunka ama kuwa looga shakiyo ee la geliyo karantiilka. wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Puntland Cabdinaasir Yuusuf Xaaji oo ay weheliyaan mas'uuliyiin kale oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka Puntland ayaa maanta qalabkan kala wareegay madaxa xafiiska WFP oo diyaaradoodu ay siday qalabkan oo ka kooban 16 kartoon. wasiirka wasaaradda caafimaadka dowladda Puntland Dr. Jamac Faarax Xasan oo magaalada Muqdisho jooga ayaa saaka subaxnimadii wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka kala wareegay qalabkan kuna soo sagootiyay garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho. Jacfar Macalin Maxamed warbaahinta dowladda Puntland Garowe.